السلام عليكم أصحابي دمانتي وada salaamay soo dhawaada shan arimood oo hadii aad samayso ka dhigaya qof soo jiidasho leh aynu maanta muuqaalkan dhexdiisa ku soo qaadan doonaa oo aynu ku faahfaahin doonaa let's go aynu muuqaalkan bilaabano si aad u gaato qodobadaas waxay yihiin soo laabasho waxaan inta ayna muuqaalkan bilaaban marka koowaad aad baad ugu mahadsan tahay haddii aad ka mid ahayd dadkii daawan jiray muuqaaladeedii hore waxa aynu gaarnay 10,000 ee daawasho ee u horeeyay ee muuqaalkeenu gaadho 6 bilood ee uu channelkan samaysnaa aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay anigu dhiirigelin bay tahay waxaan rajaynayaa in aan halka ka sii wado insha Allah dadaalka oo aan si balaarin doono ilaa ay ka 100,000 1 milyan iyo wixii ka badan ba insha Allah waxaan rajaynayaa in muuqaalkeenan iyo muuqaaladan dambe ay gaadho dhammaan cid kasta oo af Soomaali ku hadasha iyo cid kasta oo af Soomaali ku hadalba aan iska baro mar labaad haddii aad ku cusub tahay magacayga waa Fataax Mar Cali waxaana si gargaar lii kartaa Cad Fataax Mootino ku soo dhawaad channelkayga Mootino Lifestyle channelkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee 100% ka hadla lifestyle guud ahaantii hadduu yahay styleka fashionka groomingka dressingka iyo waxyaabaha soo raacan oo dhan maanta muuqaalkeena waxay ku soo qaadan doonaa 5 caado oo haddii aad samayso ka dhigaya qof soo jiidasho leh you know in muuqaalkeena bilaabano si aad ogaato qodobadaas waxa yihiin qodobkeena koowaad waa inaad ogaataa styleka ku soo baxaya labiska ama qaab dhismeedka jirkaaga taa waxaanu ugu jeegnaa aan ku faahfaahin dadka qaar waxa jira ku soo baxa dharka kalaasiga oo markasta xidha suudka ama dharkan dhiida laga xidhanayo waxyaabahaas dadka qaar ba ku soo baxa dharkan tolmaha soo kale waxa jirta dadka qaar ku soo baxa dharkan swaga ma garanayso ma wax lagu raahdo yani dharkan Adidas ta meegta yani dhaqan de soo kale waxa jira dad kale oo ku soo baxa dharkan religion-ka ama dharkan diinta khamiiska iyo soo kale dharkan dhaqanka ee macawiisaha iyo waxyaabahaas soo kale waxa jirta iska midhala oo maalin khamiis xiranaya maalina dharkii sportska maalin suuq soo xiranaya adigu ay badan yihiin qof waxba ku soo baxa laga yaabaa hadda aad muuqaalkan daawanayso in labiska aad ku labisto aanu ahayn kii jidhkaaga ku soo baxay oo style aan ahayn kii ku habboona jidhkaaga sida kaliya aad ku ogaanayso labiska ku soo baxay jidhkaaga ayaa ah adiga oo dhammaan tijaabiya noocyada uu labisku kala baxo waxa ku soo baxay natiijo ah marka aad tijaabiso in style gaar ah aad ku nidaamsato ama aad jeclaato markasta oo aad ku labisanayso styleka gaarka waa kan specialka ee uu jidhkaaga ku soo baxayo ee uu fitka ku yahay marka koowaad waa inaad taqaanaa labis ku soo baxaya qaab dhismeedka jidhkaaga qodobkeena labaad waa inaad ogaataa hairstyle ku soo baxaya face shape you know face shape iyo noocyada kala baxayo iyo muraayada ku soo kala baxaya iyo kuwan ku soo baxayn muuqaalo hore ka soo hadalnay maanta waxaynu ka hadlaynaa siro kooban wali face shape-ku sida uu samaysan yahay iyo hairstyle ku soo kala baxaya waxa jirta dadka qaar wajigooda uu samaysan yahay qaab round oo kale qaar baa jirta egg soo kale waxa jirta dadka qaar rectangle oo jawline leh oo yani wajigooda uu samaysan yahay qaab rectangle adigu ay badan yihiin adigu marka koobaad waa inaad taqaanaa qaab dhismeedka wajigaaga uu samaysan yahay marka aad garto wajigaaga nooca uu samaysan yahay qaab dhismeedkiisu waa inaad marka labaad aad taqaanaa hairstyle fit ku ah wajigaaga nooca uu samaysan yahay in aad ogaato hairstyle-ka wajigaaga ku soo baxaya waa arin daruuri ah oo sidoo kale u baahan tahay in aad ogaato si style-kaagu noqdo mid soo jiidasho leh bal qiyaas adigoo hairline-ka timahaaga oo ay yara fog yihiin oo wajigaagu samaysan yahay qaabka rownka oo kale haddii timahaaga aad isku sinto hairstyle-kaasu kuma soo baxay qaab dhismeedka wajigaaga bilcagsi qof kale oo isna rown wajigu samaysan yahay haddii uu u xirto si qofkii hore u xirtay oo kale laakiin hairline-ka timihiisu ay ka sokeeyaan qofkii hore oo kale laga yaabo waa ku soo baxaya hairstyle-kaasi qofkaas si aad ogaato qaababka kala duwan ee wajigu samaysan yahay ama qaab dhismeedka wajigu samaysan yahay waxa aan ka sameeyay muuqaal dhan oo dhameystiran waxa aan ku soo dhigayaa linkiga u horeeya description-ka muuqaalkan fadlan soo daawo adiga oo mahadsan sidoo kale waxaad ku xisaabtantaa hairline-ka timahaaga marka aad soo ogaato qaab dhismeedka wajigaaga uu samaysan yahay marka aad labada isla hesho waxa ku fududaanaysa in aad si fudud u hesho hairstyle-ka ugu habboon
ee ku soo baxaya qaab dhismeedka wejigaagu samaysan yahay. qodobka kan ugu muhiimsan ayaa ah in aad mar walba ka xirato hal ra'iisle ama barbar oo professional ah. loomana baahna inaad mar kasta u tagto mid cusub, waayo waxaa lumaya isteelkii aad u xiran jirtay. isku day in aad qabatinto hal ra'iisle oo maalinka koowaad ee u sheegto sida aad u xiranayso. inta maalmo ee ka dambaysa kaaga baahnaan sharaxaad sida aad u xiranayso, ee keliya kaaga baahan in aad kursiga ku fadhiisato. waxaan kuula talinayaa marka aad ra'iisle tegayso in aad u tagto mid mar kasta gacantaada yaqaana oo aan kaaga baahnayn in aad mar labaad dib isku barto oo aad u sharaxdo saad u xiranayso. qodobkeena saddexaad, gadhkaaga kori qaab noo yeel. brother, haddii aanu gadhkaaga isku joogin waxaan kugula talinayaa inaad intaa iska xirto oo aad soo samaysto intaa yaroo kale. aniga tusaale ahaan haddaad iska soo qaado, aniga gadhkaygu iskuma joogo, waxaan soo reebtaa intaa yar oo keliya. haddii gadhkaagu isku joogana brother, waxaan kula talinayaa inaad qorqorto oo aad qaab u yeesho face shape wejigaagu samaysan yahay, heersaal ku soo baxayna aad ugu xirato. 100% perfect baad noqonaysaa. waxaan kula talinayaa gentleman waxa kaa dhigaya waxa weeye waa gadhka. waxaad jirta dadka qaar aad arkayso gadhka si fiican ugu soo baxaya oo xiiraya markasta. haddii uu gadhkaagu isku joogo diisa brother, ku bax gadhkaagu qaab u samee, yani qorqor baalkaaga baamisa kori oo qaab u yeel. haddii aanu gadhkaagu isku jooginna يعني مركز واحد سميسا وين لو سميسا ديسين كسو بحيا في شيب كاغا bal u fiirso galku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ninka ragga uu haysto. waxa uu ka dhigayaa qof mature ah oo qangaar ah, sidoo kale waxa uu qaab u yeelayaa shakhsiyadaada adiga oo isticmaalaya. sidoo kale waxa uu qayb ka qaadanayaa in style-kaagu uu noqdo mid qurux badan oo soo jiidasho leh. haddii aad ka mid tahay shakhsiyaadka gadhka isku jooga, baraada dhaqaale gadhkaaga. haddii aanu isku jooginna u samee shayb qurux badan oo ku soo baxay wejigaaga. anna waxa aan ku ballan qaadayaa in aad noqon doonto mid intiisii hore ka sii shidan. weli waad ila socotaa maaha? aad baad mahadsan tahay baraada iyo sister. qodobkeena afaraad, mar kasta waan sheegaa haddii aad gabadh hay'adaad wiil tahay jimicsi samee. jidhkaagu jimicsi kama maarmayo. marba marka ka dambaysa ee uu jidhkaagu uu jimicsi helo ee aad jimicsi samayso, ama jimaad gasho ha ahaato, ama inaad ordo ahaato, ama meel kale oo aad system kale aad soo mari karto, jidhkaaguna kugu dhismo. marba marka ka dambaysa ee aad jidhkaaga dhisto, qaab dhismeedkaagana aad qurxiso, markaa waxaad noqonaysaa qof jidhkiisa uu shayb leeyahay oo dhammaan ku soo baxaya labis kasta oo xidho, dharkuna ay si fiican ugu soo baxaan. in aad jimicsi samayso jidhkaagana waqti geliso mar kasta khasaare ka dheefi maysid. bal u fiirso marka laga tago dadkeena Soomaalida, bulshooyinka kale ee caalamka kale ku kala nool, kan ugu yar ilaa kan ugu weyn jimicsi bay sameeyaan. mar ay gym galaan ha ahaato, mar ay orodaan ama Olympics ama marathonada ka qayb galaan ha ahaato, mar ay yoga sameeyaan oo ay guriga ku sameeyaan, ama xarumaha jidhka lagu dhiso ee loogu talagalay ay ku sameeyaan ha ahaato, ama sportiga ha ahaato, ama jimicsigu noocyadiisa badan ee uu kala baxaba ha ahaato. dhammaan bulshooyinka caalamku waa ay sameeyaan jimicsi maalin kasta oo noloshooda soo marana waa ay sameeyaan, waana cashar u qoran oo ay maalin kasta sameeyaan. inta ugu badan caafimaadkaaga oo wanaagsanaada oo kaliya lagama faa'iido in aad jidhkaaga dhisto, laakiin waxa kale oo aad ka faa'iidaysaa in aad noqoto qof dharka si fiican ugu soo baxaan, jidhkaaguna uu dharka iska xejiyo. qodobkeena ugu dambeeya ee shanaad, mar kasta ha ku labisan style khaliyaada. waxaad arkaysaa dadka qaar ilaa maalinka aad baratay ilaa iyo maalinka aad taagan tahay dhar sports iyo xidhan. haddii ay aroos tagaan ka soo qaad salahan dharkii sportska ku imanay, waxaad arkaysaa dad always class xidhan oo haddii marka ay orada iyo meelaha ay noqoto dharkii orodadaha inta ka soo xidhan lahaayeen soo xidhanaya saraawiil duna oo kale. يعني waxaan saa ku leeyahay mar kasta ha noqon mid addicted ku ama yani mar kasta xidha mar yara nasi oo yara xidho dharka sportska, mar kale yara xidho dharkan classica, mar yani sa u yara badbadal. يعني mar kasta ayaan noqon designkaagu mid kaliya oo meerkiisa ku kooban. ugu dambeyn waxaan rajaynayaa in muuqaalkeena kooban oo ka anfacay. hadda kadibna shanta caado aad samayn doonto si aad u noqoto qof soo jiidasho leh. haddii muuqaalkan uu ku anfacay fadlan
like noo saar adigoo mahadsan waayo annaka dhiirigelin bay noo tahay ha ilaawin inaad commentiga igu reebto ama noogu reebto fikirkaaga waa noo muhiim sidoo kale ha ilaawin maanta waa maalintii koowaad aan idhaahdo muuqaalada sheergareeya intii hore oo dhan ma odhan jirin laakiin waxaad leeyahay maanta muuqaalada sheergareeya asxaabtiina gaadhsiiya si intayna ka dhiman ay noogu soo biirto fadlan waa qodobka ugu muhiimsan fadlan muuqaalkan haddii halkan marayso oo aana subscribe saarin waa inaad subscribe saartaa adigoo mahadsan waayo anaga dhiirigeli bay noo tahay waxaad igala socon kartaa social mediahayga dhammaantii gaar ahaan instagramkayga facebookayga iyo twitterkayga dhammaantood waxaan soo dhigi doonaa descriptionka hoose gaar ahaan instagramka oo aan aad ugu badanahay waxaan soo dhigi doonaa descriptionka hoose ama videoga xaggiisa sare qoyn salaam asxaabti maca salaama dhammaantiin bye bye